halkani waa garoonka diyuuradaha Muqdisho waxaana laga soo dejiyay dhalinyaro tiro ahaan gaaraysa 10 lagana soo tarxiilay dalkaasi Mareykanka kadib markii laamaha amniga ee dawladda Mareykanka ay ku eedeeyeen in ay galeen dambiyo kala duwan sida ku cad qoraal ay soo gudbiyeen laamahaasi oo soo gudbiyeen laanta socdaalka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya dhalinyaradani oo ilaa hadda ay gacanta ay ku hayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan laanta nabad sugidda ayaa waxa ku socda baaritaano kala duwan sida saraakiisha amniga ay u xaqiijiyeen idaacadda VOA-da qaar kamid ah dhalinyarada oo isku daynay in aan la xiriirno ayaa ka gaabsaday inay xilligan hadlaan maadaama ay weli gacanta dawladda ay ku jiraan General Abdullahi Gafow Mahmoud waa taliyaha hoggaanka socdaalka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya wuxuuna sheegay in dhalinyaradani ay soo gudbiyeen dawladda Mareykanka lana soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho sabab ay dib ugu celiyaan aysan jirin xilligan maadaama ay yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed dadka hadda xabaale asheeshin dad Mareykan 9 qof 10 qof oo shalay Mareykan laga soo tarxiilo waay hadii anaga tarxiil qof Soomaaliya sharci waa u diinay maxkamadeena waxay xukumayna sharci la sii karinin dalkii maanta dawladana ku meel gaar maahay ma diidi karno qofka hadduu la xaqiijino Soomaaliya dadka 10 waa la keenay dambiye kala duwan ayaa Mareykan ku soo dacweeyay halka anaga waa la fariisanay waxaan raadinaynay qof aan Soomaaliya laga dhaxlo qof aan Soomaaliya laga dhaxlo kulli Soomaali noqdeen kulli dad yaqaan noqdeen kulli dadkoodii yaa halkan ugu yimid qaar dadkoodii yaa duceysanay ilaahay inuu soo celshay marka aniga ma garan karno wax oo dacwo oo gooniye maxay ku doodayaan in dib loo celiyo adiga aniga waxaan sabab ku celi karo ma garan karo ninka inuu Soomaaliya damar xaqiijinay waalidkiisa halka yimaadeen أنا سأقول لها سأقول عليك أنا سأقول عليك أنا ما يعني أنا تركي وصل سيد أنا وإحنا أنا ودك وجوك من ودك المري كاس قفل وحلو ودك لو قصة صاري هكذا فقري الملاك كله يعني ديفينيتيف محكمة ده إنه يسوقوا يندل كان أنا شرح السنين يندل كده مجوك كلام وأنا الصومالية وكانوا السبب كودي كرنا مرة ألاقي أفرنت هاي إن يندل كودي جوجان إن دعوان أبو كاتر ديلنا أبو كاتر شدوا شجان إيران دي برترا المسعودي. sidoo kale General Abdullahi Gafow Mahmoud taliyaha hoggaanka socdaalka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa kale oo ka warbixiyay garoonka iyo isbeddelka xilligan ka muuqda maadaama uu sheegay in garoonka lagu soo kordhiyay qalab casri ah oo sida garoomada caalamiga ah oo u shaqeynayo xilligan aeroportka marka haday ahaaleen soo gelitaanka iyo ahaaleen bixitaanka waxaa la qalab oo digital oo casri ah qof kasta dalka soo dego soo galo wuxuu marayaa buudadkaas fariyaa laga qaadaa sawirkiyaa laga qaadayaa maxaa la yidhahdaa wuxuu gelayaa foomkiisii oo buuxsadaa meesha gelaayo isla markiina waxay u gudbinayaan bixitaanka si hadduu qofkaas markuu dhafay xagee ka soo gashay iyo xagee ka timin isaan loo dhihin dan database ku xiran waayo bixitaanka iyo gelitaanka intaba sidoo kale meesha bixitaanka intoo kale la dhigay qofkaas oo maanta soo galay joornasay baxay joornadiyesh bisha dambe kani wuxuu u gudbinayaa joornasay soo galkaasna wuxuu soo dirayaa inuu ninkaasi baxay dan ka saddexaad wuxuu qorayaa in qofkaasi soo galay waqtigaasna baxay dan waa waxa casriga adduunka looga shaqaystay kamid tahay dan waxaad moodaa horukac dheeraada ayaa laga sameeyey qalabkiina waa la dhigay ama haddii boorso dhex mari lahayd iyo haddii qofka jinkiisa lagu baari lahay wax aan baarnayn diyaaradda ma raacayaan